Soomaalida degan magaalada Toronto ee dalkan Kanada ayaa isugu soo baxay weyneynta salaada Ciidul Adxa oo ka mid ah labada ciid ee ay u dabaaldegaan muslimiinta. Masjidka Khalid bin Waliid ee magaalada Toronto ayaa sanad walba soo qaban qaabiya meel ay isugu yimaadaan Soomaalida si ay ugu dabaaldegaan farxadda ciida. Sidoo kale waxaa jirtay meelo kale iyo masaajidyo ku yaala magaalada Toronto oo lagu tugtay salaada ciida. Inkastoo dalkan Kanada ay ka ahayd maalin shaqo, haddana waxay ku soo aaday xilli carruurta dhigta dugsiyada hoose dhexe ay u ahayd maalin fasax. Inta badan carruurta ayaa laga baajiyaa iskuulada maalinta ciida si ay u dareemaan muhiimadda ay munaasabadda u leedahay muslimiinta. Dadka ku nool qurbaha sida Kanada oo kale ayaa maalmaha ciida shaqada fasax ka qaata si ay ula dabaaldegaan qoysaskooda, asxaabtooda iyo dadka kale ee muslimiinta ah, maadaama dalalkan aysan ciida ahayn maalin guud oo fasax ah. Dad badan oo aan la hadlay ayaa ii sheegay inay jirto kala duwanaansho dhanka dareenka farxadda ciida ah marka la joogo qurbaha, gaar ahaan dalalka reer galbeedka sida Kanada oo kale, iyo marka la joogo dalkii hooyo ee Soomaaliya ama dalalka muslimiinta, iyagoo u sababeeyay in dalalka islaamka dadka ay fasax yihiin, taasoo keentay in qoysaska iyo asxaabta ay isku helaan waqti fiican oo ay ku wada dabaaldegaan. Halka dalalka reer galbeedka sida Kanada oo kale marka la joogo ay tahay maalin iska caadi ah oo la mid ah maalmaha kale oo uusan jirin dareen gooni ah marka laga reebo muslimiinta oo fasax ka qaata shaqada. Si kastaba, ciidaha muslimiinta waxaa laga dareemaa guud ahaan dalkan Kanada, maadaama masaajido badan ay soo buux dhaafiyaan dadka oogaya salaadaha ciida, iyadoo sidoo kale maqaayadaha magaalooyinka lagu arko dad muslimiin ah oo u cunto doonanaya, iyagoo waqti fiican ku qaadanaya islamarkaana u dabaaldegaya munaasabadda ciida. Fadlan si dhow noogu xidhnow si aad wax badan ugu ogaato Kanada iyo Soomaalida ku nool. Inta aan mar kale kulmi doono, nabadgelyo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.